waxa ay tahay farxad iyo maaragtay reereyn aan la soo koobi karin shucuurteeda caawa aad ayay u kacsan tahay waxa aan ku faraxsanahay oo maaragtay aad aan ugu qanacsanahay bilowga wejiga ugu horeeyay ee ololaha khayriga ee la magac baxay buurinde ka qaad buurinde si in uu si fiican uu noogu soo gabagaboobay insha allah bismillahi kariim berritana aan bixin doono ducfadii ama wejiga ugu horeeyay oo koowaad in aan berrita aan bilaabi doono insha allah bismillahi kariim waxaan rabaa aniga oo ka faa'iidaysanaya waqtigan ilaahay uu siiyey in aan halkan hambalyo iyo bogaadeen aan uga diro tiimka maaragtay sida fiican uga shaqeynaya gudaha magaalada muqdisho khaasatan xaafadii buurindi haba u badnaadeen gabdhaha walaalaha ee qaaliga ee sida xoogga leh maaragtay dhexda ugu xirtay in ay arrintaas ay ka biyo keenaan oo maaragtay ay ka gungaaraan xaqiijiyaana guusha iyo maaragtay meesha ay arrinta ugu dambeyntaa waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay gabdhaha aad ayay u dadaaleen waxaan leenahana jazaakumullahu khayr jazaa waxaan kaloo sidoo kale ammaanaya wiilasha walaalaheen ah ayaguna aan ka dhicin sidaas maaragtay iyagana guntiga dhiisha isaga dhigay sida ay maaragtay uga qayb qaadan lahaayeen ururinta hawshan khayriga iyo iyaga oo mar walba maaragtay isku raacay in ay gurub inta isku raacaan ee guryaha albaabada ay ku garaacaan oo ay ka qaadaan walaalka buurindi ayagoo ku qancinaya iyagoo siinaya walaalka buurindi marka waxaan leeyahay jazaakumullahu khayr jazaa ilaahay waxaan ka rajeynayaa ducfada labaad wejiga labaad marka uu noo bilowdo waxa aan rajeynaynaa in aan ku baahi doono ololahan uu ku baaho guud ahaan degmada Wardhigley khaasatan gobolka Banaadir insha Allah bismillahi kariim wixii tabarteeda ay nageyso aad iyo aad baa idinkuga hambalyeynaya kuwa qaadan doonana waxaan ilaahay uga rajeynayaa in ilaahay uu alfo oo caafimaad ay ku cunaan bismillahi kariim inta soo dhiibtana in ilaahay uu khayr ugu bedelo inta soo aruurisana ee lugtooda iyo maalkooda iyo naftooda u horeyna ilaahay waxaa ka baryayaa maalinka qiyaama in maaragtay uu khayr ugu bedelo insha Allah bismillahi kariim dhamaantay waxaan u soconaa meel buurindi ha socoto ha horumarto insha Allah ha guuleysato waxa aan rajeynaynaa guul insha Allah aad ba mahadsantihiin dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaan waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo gudoomiyaha waa nin reer Wardhigley muddo uu ka maqan yahay dalka wuxuuna lahay fakarkaas iyadoo fakarka yani la wada qabtay laakiin ninka fakarkaas la wada garaad muraadi xaaji cabdullaahi allah inaad taqaaniin oo maleen aniga weliga isma arkin laakiin waxa waaye maadaama uu xaafaddu u istaagay anin dhalinyaraayo waxaa go'aansaday inaan garabkiisa istaago oo aan la shaqeeyo alxamdulilah maantaana miraheeda hayaa waxaan leenahay qol oo social media dad isticmaala u badannahay whatsappka waxaa ku leenahay qol walaalaha buurindi ku magacaaban waxaa nagu jirto culumaa nagu jirto oo meesha noogu waxaa ku jiro dhalinyaradii hore dad inta waxaa nagu jiro dad ka maqnaay 30 sano reer buurindi ahay xaafadda nala deganayd dhammaan walaalaha buurindi odayaasha culamo-udiinka dhalinyarada haweenka goobtan isugu yimid anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca gudoomiyaha xaaji muraadi xaaji cabdullaahi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdi yuusuf colow oo ka mid ah dhalinyarada isxilqaanka samaynaysa ayaa ka warbixiyey fikirka cidda keentay iyo qaabkuu ku hirgalay barnaamijkan khayriga ee walaalaha buurindi markiisii hore rag akhyaara oo isku tegay ayaa barnaamijkaas go'aansaday sidaas awgeed ayaa nin la yidhahdo Cayduruus Cabdi Leelaax oo barnaamijka markaas dibadda jiray ayaa wuxuu soo jeediyey in barnaamijkii qofkii wax laga duubo si barnaamijka dadka bulshada loogu bandhigo barnaamijkii dhaqaalii ugu horreeyay ee barnaamijka lagu sameynayay asaa soo diray ajari xasanaad ilaahay ka siiyo barnaamijkaas sidaas ayaa khayriga ku bilowday fikraddii markii la isku keenay ayaa Cayduruus Cabdi Leelaax uu soo jeediyey in barnaamij noocaasa la sameeyo barnaamijkan hadda aan wadno oo khayriga ninka fikraddiisa soo jeediyey taladana aan ka qaadanay dadkii meesha markaas ku yimid fikraddii markay aruuriyeen fikrad saliima la noqotay barnaamijkaas ayaa laga amaqahay sidaas ayaa waxay noqotay in qol la sameeyo la yidhaha walaalaha buurindi barnaamijka hore loo kaco horumar la sameeyo sadaqadii la aruuriyo